assalaamu calaykum asxaabay soo dhowaada. magacaygu waa cabdirasaaq daadaa. muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa aqoon-yahankii reer iiraan ee ka mid ahaa aqoon-yahanadii ugu weynaa ee sayniska looga dambeeyey ee taariikhda islaamka soo mara. magaciisa wuxuu ahaa abuu rayxaan maxamed ibnu axmed albiruuni. wuxuu 973 miilaadiga ku dhashay magaalada biruuni ee waddanka usbakistaan. wuxuu ahaa caalim muslim ah oo khabiir ku ah sayniska, xisaabaadka, caafimaadka, dawada, juqraafiga iyo xiddigiska. sidoo kale wuxuu ku xeeldheeraa taariikhda iyo suugaanta Hindida. waxaa kaloo loogu yeeri jiray aabbaha isbarbardhigga diimaha. abuu rayxaan keliya intaa muu ahayn, sidoo kale wuxuu ahaa aqoon-yahan waxyaabo badan oo kala duwan bartay. wuxuu yaqaanay falsafadda, fiqiga iyo taariikhda. wuxuu kaloo ahaa juqraafiyahan, farmashiiste ama qof dawooyinka sameeya, fiisikisyahan iyo dhulmareen waddamo badan ku socdaalay. albiruuni sannado badan ayuu ku bixiyey barashada taariikhda iyo suugaanta Hindida. wuxuu bartay dadkeeda, luuqaddeeda iyo dhaqankeeda. wuxuu kaloo bartay luuqadda Sanskrit oo ah luuqad qadiimi ah oo xilligii hore ay Hindidu ku hadli jireen. qoraallo badan oo luuqaddaas ka mid ah ayuu ka soo qaatay waddanka Hindiya. sannadkii 1030 ayuuna ka qoray oo ka dhigay buug dhammaystiran. wuxuuna u bixiyey buuggaas taxqiiq maalil hindi, waana buugga ugu weyn looguna kalsooni badan yahay ee ka hadla taariikhdii hore ee Hindida. albiruuni buugaagtiisii intii ugu badnayd wuxuu qoray intii lagu guda jiray 1020 ilaa 1030 miilaadiga. mid ka mid ah buugaagtiisii ugu caansanaa waxaa lagu magacaabaa alqaanuun almascuudi, wuxuuna qoray 1030. buuggan wuxuu qoray markuu ka soo laabtay waddanka Hindiya, wuxuuna u hibeeyey oo ugu magacdaray suldaan mascuud oo ahaa suldaankii boqortooyadii qasnawiya ee ka arriminaysay Iiraan, Afghanistaan iyo qayb Hindiya ka mid ah. albiruuni wuxuu ahaa saynisyahan muslim ah oo guulo badan ka gaaray aqoonta sayniska iyo baaritaanadii uu samayn jiray. wuxuu dhihi jiray, khibraddayda ku aadan barashada cilmiga xiddigiska iyo xisaabaadka iyo tijaabooyinka fiisigiska ee aan sameeyey, waxaan ku ogaaday qaabka cajiibka ah ee dunidan u samaysan tahay iyo sida loo sameeyo dawooyinka dabiiciga ah. albiruuni weligiis ugama faa'iidaysan aqoontiisa inuu caan ku noqdo ama inuu ka dhaxlo awood iyo hanti fara badan. taasina waxaa inoo caddaynaysaa markii uu suldaan mascuud uu u soo diray albiruuni 3 geel oo saaran lacag aad u fara badan, isaga oo uga mahad celinaya buuggii uu u hibeeyey uguna magacdaray ee alqaanuun almascuudi, ayaa albiruuni si xishmad leh u celiyey hantidii boqortooyadii qasnawiya u soo dirtay. wuxuuna yidhi, aqoontayda waxaan u adeegsadaa inaan ku horumariyo aqoonta ee uma adeegsadi inaan hanti ku helo. albiruuni wuxuu ka mid yahay saynisyahanadii ugu weynaa ee dunida soo maray. wuxuuna geeriyooday 13 Diseembar 1048 miilaadiga. wuxuuna ku geeriyooday magaalada Qazni ee waddanka Afghanistaan. daawade, muuqaalkan haddaad ka heshay laag saar, sabskraibna ha ka ilaabin. wassalaamu calaykum.